qofka taariikhda akhriya quustuba qalbigiisa ma gasho weligii wuxuu arkayaa adduunyo Allah subxaanahu wa tacaala dadka dhexdooda ku kala badbedelayo. dadkii hodanka ahaa waxay noqonayaan fuqara aan waxba haysan, kuwii fuqarada ahaa ama ceyrta ahaana waxay isku beddelayaan dad hodan ah. kuwii shalay daciifka ahaa ee taagta darnaa maanta waxay noqonayaan kuwo awood badan, kuwii shalay xakumi jirayna maanta waxay noqonayaan kuwo meel walba lagu bursanayo oo la raadsanayo. kuwii wax xakumi jiray ee qudaadda ama garsoorayaasha ahaana waa la tuhmayaa. dadkii xoogga badnaa maanta waa laga xoog badan yahay. dowrku waa wareegayaa, noloshuna ma istaagayso, dhacdooyinkuna kama quusanayaan oo kama joogsadaan in ay dhaqaaqaan. dadkuna kuraasta ayay isku badbedelaan, ma jirto murug sii soconaysa ama farxad iska daa'imaysa. nolosha waxaa jira laba shay oo xunxun. kan koowaad waa inaad naftaada been ka sheegto, kan labaadna waa inaad ka cabsato qof u xanuunsada sidaadoo kalena u dhinta. labadoodaba ka taqallus ahawna qof qalbigiisu dhiiran yahay, waxaad noqonaysaa markaa qof sharaf leh. xaaladda ugu wanaagsan ee guusha nafta lagu tilmaami karo waxay tahay marka aad dhoolla caddayso iyadoo dadku ay kaa sugayaan in aad ilmayso. xaaladay dadku kaa sugayeen inaad ilmayso oo aad murugooto, muujisana jabka kugu dhacay ayaad muujinaysaa in aad tahay weli qof awood leh oo aan la loodi karin. taasi waxaa lagu tilmaami karaa guusha ugu fiican ee nolosha waa marka laga eego dadka kale sida ay kuu arkaan. waxaan arkay runta oo boorsooyinkeeda xirxiranaysa, markaabaan weydiiyey halkee baad aadaysaa runtaay. runtiibaa waxay tidhi waan isaga guurayaa zaman ay beentu noqotay aniga beddelkayga, aniguna aan noqday bilaa qiimo aan lagu dhaqmin. dad waxaa jira aad u dulqaad badan, dadku markay arkaanna waxay u maleeyaan waxyaabaha lagu samaynayo ama iyagu ay ku samaynayaan inaysan dareemayn. haddaba noqo qof dulqaad badan. qof kastood jeceshahay kuma farax geli karo mar weliba, qof kastood nacaysana kuma muruggelin karo mar weliba. sakiinta waad aragtay xajmigeedu aad buu u yaryahay, haddana waxbay dhaawacdaa. dawaduna aad bay u qaraar tahay, haddana caafimaad baa laga helaa Ilaahay idinkii. qofka si dhaba kuu jecel wuu ku sheegaa, qofka kuu xiisa ama kuu hiloobana wuu ku weydiiyaa. kan ku ciseeye ee ku sharfana kaama oohiyo ee mar weliba wuxuu isku dayaa inuu kaa farxiyo. markii dadka xaqa u saaxiibka ah ay aamusaan, ahlu baadilku waxay isku maleeyaan inay xaq ku sugan yihiin.